ciyaaryahanka lagu magacaabo Faysal Xasan Xaashi ayaa shaaciyay maanta inuu iskaga tagay kooxda oo ka tirsanaa Dekada taas oo ku guuleystay xil ciyaareedkii la soo dhaafay horyaalka Soomaaliya Premier League. Xidigan weerarka ka dheela ayaa iskaga tagay kooxda Dekada oo ugu soo biiray naadiga Genyo. Faysal Xasan Xaashi ayaa idaacada Gool FM u xaqiijiyay inuu iskaga tagay kooxda kubadda cagta Dekada isagoo aanan bixinin faahfaahin intaasi ka badan. Wuxuu ku soo ifbaxay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir sanadii 2015-16 wuxuu dheelayay xilligaasi degmada Warta Nabadda xilli markaas kaga hartay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. ciyaaryahan Faysal Xasan Xaashi ayaa isla sanadkii 2015-16 ku biiray kooxda Genyo wuxuuna isla sanadkaasi ku guuleystay goolalinta horyaalka Soomaaliya Premier League ee kabta dahabka. Wuxuu isla xil ciyaareedkii 2015-16 Faysal Xasan Xaashi nasiib u yeeshay inuu matalo calanka Soomaaliya ama xulka qarankeena dalkeena Soomaaliya. ciyaaryahan Faysal Xasan Xaashi ayaana kamid ahaa xidigii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta Dekada. wuxuu maanta ku dhawaaqay inuu iskaga tagay kooxda kubadda cagta Dekada oo ku tirsanaa in ku dhawaad 3 sanadood taasoo sanadkii ugu dambeysay uu la hantay horyaalka Soomaaliya Premier League. ciyaaryahan Faysal Xasan Xaashi wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan ee horyaalka Soomaaliya Premier League kaasoo ku soo ifbaxay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. Dekada ayaana markaan u weynaysa mid kamid ah weeraryahanada ugu halista badan ee horyaalka Soomaaliya Premier League ka ciyaara ee Faysal Xasan Xaashi waxaana ciyaaryahankan daneynaya adeegiisa kooxo badan ee horyaalka Soomaaliya Premier League qayb ka ah kuwooda ugu quwada weyn ilaa haatan lama shaacin kooxdu ku biiri doono ciyaaryahan Faysal Xasan Xaashi.